kulanti wacan wanaagsan dhageystayaal waa subaxnimo sabti ah 28 bisha saddexaad ee sanadka 2020 idaacadda subaxnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Kawthar Maxamed Cabdulaahi qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda iyada waxaa ka mid ah Talyaaniga oo dhimashada cudurka COVID-19 ay gaartay halkii ugu sareysay Kenya oo uu ka dhaqan galay bandow lagula dagaalamayo cudurka dadku siday u arkaan ilmiyaas guri lagu xareeyay awalba oo dugsi u jirin oo iskuul u jirin oo station u jirin oo masaajid kaaga soo nafaasayna haddana hal saac meel ku xareysay maana cili kara ilmo waa dooray ibu ma arka inay habeenka badow la soo rago maxaa yeelay laaba kasta oo lagu joojin kara inaad si faafo cudurkan oo aan taageersanayn ganacsatada Soomaalida ah ee Koonfur Afrika oo ka walacsan in bandowga dalkaasi uu horseedo boob ka dhan ah dukaamadooda waxa kale oo aad maqli doontaan maxaa ubax soo dhalaalay intuu dhashay soo barbaaray dharo ku qalalay dalkeena rajiyo noloshii dhex taalay barbaa darbiyada ku dheelan dileen dhaxantii qabowgu markuu dhimirkoodu leecay intay ka qanceen dhulkooda daroogo badbaaba dhuuqa waa gabar da'yar oo hal-abuurkeeda uga qayb galaysa tartan caalami ah qodobadaas iyo kuwa kale oo ciyaarihiin ay ka mid yihiin ayaad ku dhagaysan doontaan idaacaddan subaxnimo oo uu soo saaray Maxamed Cabdiraxmaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida iyo Cabdifataax Ibraahim Cagayare mahadsanid Kawthar madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump ayaa saxiixay $2 trilyan oo dhaqaale degdeg ah oo lagu talagalay in lagu khafiifiyo saameynta cudurka coronavirus uu ku reebay dhaqaalaha waddankaasi waa barnaamijkii ugu ballaarnaa ee noocaas oo kale ah oo ay samayso Ameerikada casriga ah Mareykanka ayaa haatan waxa uu ku warramayaa in cudurka coronavirus uu ku dhacay in ka badan 100,000 oo qof tiradaas oo ah midda ugu ballaaran ee hal dal uu diiwaan geliyey Mr. Trump ayaa sidoo kale waxa uu isticmaalay sharci lagu talagalay xilliyada dagaalka si uu shirkadda baabuurta samaysay General Motors ugu amro in ay wax soo saarkeeda u waciso soo saarista qalabka bukaanada ay ku neefsadaan ee aadka loogu baahan yahay si loogu dabiibo dadka ku dhacay cudurkaasi COVID-19 Trump ayaa waxa uu sheegay in uu soo celiyay qaanuunka difaaca ee wax soo saarka sababtoo ah shirkadda General Motors ayaa waxa uu sheegay in waqti ay ku luminaysay wadaxaajoodyada ku aadan qandaraaska ay qalabkaasi ku sameynayso dimuqraadiyiinta ayaa waxa ay Trump cadaadis ku saarayeen in uu sharciga soo celiyo madaxa sanduuqa lacagta adduunka ayaa waxa ay sheegtay in cudurka coronavirus uu caalamka gaarsiiyey dhaqaale kududsi taas oo aad ugu xun ama ugu yaraan sidii dhibaatadii dhaqaalaha ay dunida ku habsatay in ka badan 10 sannadood ka hor Kristalina Georgieva ayaa waxa ay ka digtay in gaar ahaan dadka dalalka soo koraya ay soo gaari doonto dhibaatada ugu daran dowladda Brazilna waxa ay muddo 30 casha dalkeeda ka mamnuucaysaa in diyaarad ay ku soo galaan dadka ajaanibta dhibaatada ka dhalatay cudurkaasi coronavirus awadi talaabadan ayaa waxay dhaqan galaysaa maalinta Isniinta waxaase ku jiri doonin balaleeyahay diblomaasiyiinta iyo ajaanibta dalkaasi degan madaxweyne Jair Bolsonaro ayaa waxaa lagu dhaleeceeyay in cudurkaasi safmarka ee coronavirus uu ku tilmaamay inuu yahay hargab caadi ah shabakadda Ameerikaanka ee lagu magacaabo Fox Business ayaa waxa ay sheegtay in qandaraaskii ay ka joojiyeen haweeneyda lagu magacaabo Trish Regan kadib markii barnaamijkii ay soo jeedin jirtay hawada laga saaray 2 toddobaad ka hor khudbad dheer oo ay Miss Regan jeedisay ayaa waxay ku sheegtay in walaaca laga qabo cudurka coronavirus ay tahay khiyaano ay abuureen warbaahinta si ay u burburiyaan madaxweyne Donald Trump wararka kale ee caalamkana waxaa ka mid ah dowladda Indonesia ayaa waxa ay sheegtay in ay dibcin doonto shuruucda adag ee saaran dhoofinta alwaaxa taasoo sare u qaaday baa leeyahay walaaca laga qabo inay sare u kacaan jarista sharci darrada ee dhirta sharcigan la bedelayo ayaa waxa uu imanayaa kadib sanado badan oo shirkadaha sameeya alaabaha guryaha la dhigto ay ka cabanayeen in ay adag tahay oo ay weliba qaali tahay sidii lagu heli lahaa shatiga ay ku shaqeeyaan ugu dambeynna warar ayaa sheegaya in hoteelka caanka ee Ritz ee ku yaal bartamaha magaalada London lagu gaday ku dhawaad $1 bilyan Mareykanka shirkadda dhanka sharciga oo ka shaqeysa magaalada London fadhigeeduna halkaasi uu yahay ayaa waxa ay sheegtay in maalgashada u dhashay waddanka Qatar uu hoteelkaasi la wareegay warka caalamkana waa naga inta
aad buu umahadsan yahay cabdifataax ibraahim cagayare ayuu ahaa oo inala socodsiinayey wararka caalamka ee BBC-da. halkaad ka dhegaysanaysaanna waa laanta af soomaaliga. subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal, aynu ku bilaabnee talyaaniga ayaa diiwaangeliyey tiradii ugu badnayd ee maalin keliya u dhintay cudurka covid-19 tan iyo markii uu soo shaac baxay. waxaa shalay oo qura ku dhintay 969 qof, taasi oo ka dhigtay in dad ka badan 9,000 ay ilaa iyo hadda dalkaasi ugu dhinteen cudurka. talyaaniga ayaa ah dalka ugu daran ee uu Yurub ka saameeyey covid-19. waxaa xiran dhammaan ganacsiyada iyo goobaha kale, dadkuna waxaa lagu amray inay guryahooda joogaan. haddaba si aan wax badan ugu ogaano xaaladda dalkaasi ayaan khadka telefoonka kula xidhiiray Dr. Fuad Caamir Tarmuum oo ka mid ah dhaqaatiirta dalkaasi ee la tacaalaysa xanuunkan. waayahan dambe waxaad u moodaa waxaynay sii yaraanayaan, dadka dhimanayana sii yaraanayaan, laakiin se maanta aad baan u qalbi jabnay. 969 qofoodaa dhinteen last 24 hours. marka arrin waxa waaye aad fulaan oo gelisan. marka sidaad sheegtayba shalay tiradii ugu badnayd maalin qura ayaa laga diiwaangeliyey dalkaasi, maxaa loo sababayey? والله وياسنا walaalay waayo labadaas wixii dambe wax ka socod ku yareeyeen dhaqaaqii waa yaraaday, controlkii aad baa u batay, laakiin problemkeena waxa waaye gobolka weyn oo la dhahay Lombardia oo caasimadu ah Milan. gobolkaas waxa waaye 550 qof ku dhinteen shalay, inta kale waa Italy. marka hal gobol kaliya arrintaas ku badan. marka sabab badan jiraan طبعا sabab waxaa ka mid ah metroga oo teenanka furan iyo warshadihii hadda la xiray isbuucan la xiray. marka saa birinaysa cudurkan ugu faafaya laba isbuuc dhexdiisa ilaa hadda, laakiin waana ogaana in 10 qofood baaraysteen cudurkan ku dhaca. marka wax xunna kaliya ma ahan. marka tirada shalay markaan ka soo tagno maalmihii ugu dambeeyey waxaa la sheegayey inay hoos u dhaceen tirada kiisaska fayraskan. marka taas rajo intee la eg ayay muujinaysaa? waxaad ka dareemaysaa dhakhaatiirta dhintaan 50 takhaatiir baa dhintay haleestaan 7,000 naas iyo dhakhaatiir ayaa cudur ku dhacay, dadka ka shaqeeya caafimaadka. waa hadal oo aad oo laga naxay walaalayaal, run ahaantii waa qalbi jab baan ugu dhacay. waddanka bandow ayaa la geliyey, balse dhimashada weli way sii socotaa. maxaa la isdhihi karaa bandowga wuu soo kordhiyey? bandowgan waxaan soo adkeenay hadda isbuucan dambe. cudurkan adiga duqadu ku taabto 2 usbuuc buu jirkaada ku jiraya, incubation baa la waqti incubation. 2 usbuuc kadib calaamooyinkii soo baxayaan. marka dadka oo cudurka qaaday xogaa maalmo ka hor, marka waxa waaye hadda ka banaanka soo istaagayaan. 4 maalin dambe oo Itaaliya hawada isbedeshay oo qabow badan yimid, baraf baa yimid, qabow baa yimid. marka hadda gobolkeena xataa gobol dhex qabow baa yimid. ayaga taasina sabab u tahay. bal ka waran xaaladda dadka Soomaalida ah ee ku nool dalkaasi waa sidee? walaal runtii waxaa jirta xogaa sheeko oo abay oo dhakhaatiirta aad u yaabsanay. dadka waxaad u moodaa oo midabka madow qaasaan wadankan Talyaaniga inay dhimashadu ku yartahay. ilaa hadda waxaan haynaa hal qof oo madow ah oo young ah oo fiican oo caafimaad fiican oo geeriyooday, laakiin badanaa waxaad arkaysaa madowga dadka Afrika imaada in cudurkan oo xogaa ka badbaadayaan dad u moodaa. marka Soomaalidana waa maqlay Sweden meelahaas kale wax kana ka dhacay, laakiin ila deertaan waxsaas ma hayn. waa tahay kaasina waxa uu ahaa Dr. Fuad Caamir Tarmuum oo ka mid ah dhaqaatiirta dalka Talyaaniga ee la tacaalaysa xanuunka, wuxuuna iga waramayay xaaladda dalkaasi. markana dalka Kenya waxaa ka dhaqan galay bandow 7 fiidnimo ilaa iyo 5 aroornimo ah, kaas oo ay dowladda kula dagaalamayso cudurka covid-19 ee caalamka faraabaan ku haya. habeenkii koowaad ee bandowga ayaa waxaa xaafadda Islii lagu arkayey dad ay saacadu ka dhacday oo ka cararaya booliiska, inkastoo aan la xaqiijin tirada loo xiray jebinta amarka dowladda. xukuumadda Kenya ayaa sheegtay in la xirayo islamarkaana la maxkamadeyn doono dadka jebiya bandowga. Kenya ayaa laga helay 31 qof oo qaba cudurka covid-19. haddaba aan dhegaysano fikradaha ee qaar ka mid ah shacabka magaalada Mandheera ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya ay ka qabaan bandowga. kafiyowga wax ay soo kordhinaysa oo ilaahay abuuray malahan. waxaan weydiisanaynaa dowladda county iyo dowladda nationalba waxyaalo sheeyaalka looga targalay ay isku mashquulin waxyaalahan kafiyo iyo kii kale iyo waxyaalahaasayto ha ku dadaasha sida dadweynaha ay raashin ku heli lahaayeen, sida dadweynaha ay biyo ku heli lahaayeen, sida dadweynaha ay daawo ku heli lahaayeen. dowladaha haddii hata kafiyo la saarayo waxaa la rabaa dhaqdhaqaaqyaal badan ayaa jira. dadkii isku mid maahan. ummadda qaar habeen ay shaqaystaa, qaar
maqaalina shaqaysta marka waxa idinku codsanayna dawladda Kenya inay fududeyso arrimaha oo dawladda ayaa jiran la leeyahay laakiin culayska maanta dawladda Kenya ay dadweynaheeda saaraysa dadweynaheeda masaakiinta kama jira wadanka Soomaaliya iyo wadanka Ethiopia madiidan anaga in wax laga qabto cudurka in la xakameeyo madiidan laakiin nidaamka wax loo qabanahay dawladda nidaamkii dadweynaha ay ku qanacsanayeen wax uma wada si dadweynaha ay ku qanacsanyiin waxa uu wada waa arrin wanaagsan oo taageersanahay maxaa yeelay waa arrin dhibaato weyn leh cudurkan waa faafi aad ugu faafi dhibaatadiisana way badan tahay nim aad sheegana malaha sida u socoto adduunka maxaa yeelay arrintan waa arrin aad iyo aad u fulxun masaajidada la xiray iskuulada la xiray dugsiyada la xiray ibu ma arka inay habeenka badow la soo raga oo madaxweynaha soo raga maxaa yeelay arrintaday wax kasta oo tilaabo kasta oo lagu joojin kara arrimaha maxaan ku dhahay ina si faafo cudurkan waan taageersanahay insha Allah maxaa yeelay arrintan hadii anaga iskiiso aan dadaalkeeda qaadan wayna qof noo imaanayo oo noo dadaalaya malaha marka codsigeed waxa way reer Mandera arrintan inaan dhab u qaadana oo arrin dib badan hadaas warbaahinta fiirisaan arrintan adduunka ka socoto Soomaalida Sweden dukan aad u bihaysa wadada aad social markii la soo dhawaanta aad bulsho jecel arrinteedana dhibaato weyn inay keento baadic karta arrintan habeen socodka iyo fadhi ku dirka iyo maqaayadaha la isku imaanaya inaan ka kaaftoono guriyahana aan ku eekaana arrinteeda maxaan ku raada aan dhab u qaadana madaxweynaha arrinta ka soo baxday waan ku go'onahay marka dhab aan u qaadana dadka aad iyo aad u fog jignaadena meelaha la isku imaaday iyo meelaha maqaayadaha iyo masaajidada la xiray meel kale oo hadda aan leenahay la isku imaan kara malahan magacayda waxa la dhahaa Mahada Cabdi awal horaba horta bandawana saarnay maxaa yeelay anaka dib jirin oo waxba jirin oo aas maxay qofka ina aan banaanka 3 saac lagu arki karin oo hadda cunugiis waxay u soo dirsatay aan la qabanayo awal hore hamgad qaba askar qaba ay ahayd hadan waaba ka sii daran ka dara dib dhalada la sheegay way oo ilmihiis guri lagu xareeyay awalba oo dugsi u jirin oo iskuul u jirin oo station u jirin oo masaajid kaaga soo nafaasayna masaajidta aadayna hadana hal saac meel ku xareysay ma raacin kara ilmo waa dooray horta ma celin kara hal saac ma celin kara banaanka waxa la yiri dukaanka hatta waxba laga soo gadan laazim tii ida horta dhib ay noqotay بالعامهس قاسة هتنا تقعد على كرتا تقعد عنك حنون سنكرا تقعد فولاني بالناق فولاني اللي ما نقولنا إلا سواء كبر يساس يقول علن كرتا soo inay ay naagti asorta baabuur u hesho ama ha soo dhasho ama ha soo dhimato ama waqti kale waa la dhahaa asqaadama baabuur hadaad socon hadaad lugtaada soconi karin hadaa la yiraahdo waa bandow dhib ay noqon tahay cudurka habeen ma socdee habeen maalin waa isku mid bandow waxa noola saaraa waa yaabsanahay maxaa noola saaraa bandow faa'iido as bandow soo kordhinaa ma jirto dhibaato moogi qasaaro un baa waragnaa dhib aan waragnaa shalaad haysta hadaad haysta naga kor qaada bandowga muxuu soo kordhin karaa waxyaalo badan ay soo kordhin karaa saa ogtahay dadweynaha arrin badan loo soo jeeday bariyahan Kenya ka arkaysay meeshaas kala soo jeedinayda waxa u maleyn dadweynaha inay ka cagajiidayaan marka saas aligeed waxa maleynaa dawladda marka arrimaha social distancing dadka deelu ka rawaay marka waxa la dhahay dharaartii dawladda waa fiirin kartaa say waxiin laakiin habeenka lama karaayo marka say ila tahay mid habeenkii ilaa ka oo subaxii dadka intaas ay guriyaha ku jiraan waxa maleynaa dhibka waa yaraana social distancing kana dawladda dharaartii markaas way kari kartaa marka wax badan ayuu ku soo kordhinaya kaafiga dubilad uu taqaana lama socon karo laakiin waxa jiri list oo la soo saaray oo dadka emergency services bixiyaan sida ambulaansiyada istaalada dad oo waxa jirtay oo approved oo inta waqtigan kaafi uu socdo oo socon kara waa tahay waxaad dhegaysateen fikradaha ay qaar ka mid ah shacabka magaalada Mandera ee gobolka Waqooyi Bari Kenya ay ka qabaan bandowga ka dhaqan galay xalay 7 fiidnimo ilaa 5 aroornimo ee dalkani Kenya wali halka aad naga dhageysanaysaan waa BBC waa tahay idaacadda subaxnimo ayaadna dhageysanaysaan isla wararka fayraska corona ayaan ku jirnaa ee dalka Koonfur Afrika waxa uu maalintii labaad gelayaa bandow buuxa kaasi oo saameeyay nolosha malaayiin qof oo dalkaasi ku nool Soomaalida dalkaasi ka ganacsata gaar ahaan kuwa deegaanada fog ku nool ayaa walaac ka qaba in xaaladdu haddii ay sidan ku sii socoto ay horseedi karto boob loo geysto dukaamadooda Cabdi Ashkir oo loo yaqaan Cabdi Ilig waxa uu ka mid yahay ganacsatada deegaanka Tembisa sida uu xaalka yahay iyo walaaca ay ka qabaan ayaan ka wareystay dalka hadda gidi ahaanba uu xiran yahay xaaladda laga hadli karo ama wax laga sheegin karana ma ahan oo meel furan ama meel shaqaynaysa midna ma jirto dadkuna waxa waaye in la caawiyo u baahan yihiin marka dawladdiina waxay leedahay goobaha ganacsiga lama furi karo marka
waa arki doonaa kolley wixii kasoo baxa laakiin hadeerkaan maanta gedigiisa wadanka waa bandow. marka bandowga ma xilli go-an ah baa mise waa 24 saac? wax hadda xilli go-ana nalooma sheegin 24 saac inay eg tahay ayaan filaynaa. wax hadda muddo ah oo naloo qabtana ma jiraan. marka dukaamadiina haddii ay dowladdu amartay inaad xirtaan maxaad samayseen? dukaamadii way xiran yihiin laakiin waxaa hadda uun sameynay inaan annaga isku xirnaano oo dadkii aan weydiino qaabkii annaga aan ku shaqaysa lahayn ama aan police station ka tagno aan weydiino mana furnaan karnaa oo masasaanaan u xirnaanaynaa. marka weli hadda wax jawaaba kama soo bixin laakiin waxaan u malaynaa in dukaamadu ay xiran yihiin gebigood oo weli aysa dowladda amar ka soo bixin. arrintan waa mid la xiriirta badqabka dadka marka sooma fiicna inaad raacdaan amarka dowladda? amarka dowladdu wuu fiican yahay laakiin haddii aan kuu sheego xarumaha hadda la cayimay oo layidhi dadku macnaha wax way kasoo iibsan karaan bas hadda macnaha kaafargaray kara ama dadka caawin kara ma ahan oo ma ka bixi karaan oo dadku aad ayay u badan yihiin aad iyo aad u badan yihiin. markii meeshii uu rabo qofkii inuu kasoo gato subaxii breakfastiga waxa ay dhahaan marka wuxuu u gelayaa 10 saac ka hor kiigu ama laynka usii gelaa. marka xaaladdu waa adagtaa wixii kasoo bixi doona halkaas waxaan u malayaa xaalad adag inay kasoo baxdo. haddii xaaladdu ay sidan kusii socoto maxaa dhici kara? wallaahi haddii xaalku sidan oo kusii socdo weji fiican ma dhici doono lianna dadkaanu dad kayd dhigta ma ahan. dadkan madowga waxa waaye waxay maanta soo helaan dadkay ku shubtaan marka weji qurxoon ma filayno. waxaan u malaynaa dadkuna digtooni ayay ku jiraan. hal dukaan ugu horeeyo oo meel la yidhaha Difiton waa la iisoo sheegay oo habeen horeba lagu leefay. marka waxaan u malaynayaa annagu laftirkeena isgaagaabin iyo is-urursi iyo waxaa lagu jiraa iska warqab iyo qolo walba qof kale inuu waco oo yidhaahdo xataa adeegyadii xataa la dooni jira xataa ma jiraan. wax adeega ma jiro oo dukaamadaa lagu jiraa. marka intii adeegii hata yaalla ama stoogii ku yaalay ayaa wax walba ka walwal badan sida dadkaanu macnaha markii 2 wiig oo horeysa oo dhaqan galo bandowgan uu dhaqan galo wiigga saddexaad maxaa kasoo bixi kara ilaa dadkaanu dad dhaqaale haysta ma ahan waa dad saboola. marka ka ganacsato ahaan maxaa idin qorshe ah hadda? wallaahi horta ka ganacsato ahaan waxaan ka tashanay qaabkii aan ka yeeli doono barnaamijkan. waxaan isku waafaqnay in aan horta kow annaga isku xirnaano 2 in aan meesha police stationka noogu dhow aan tagno oo xaaladda warbixintii mar walba cusub aan soo dhageysano oo aan ku dhaqan galno kabacdina dukaankii oo isbaho war xaalad baa jirto inaan si degdeg u gaarno. saas hadda noo qorshaysan laakiin hadeertaan weli wax kalaaba maanaa qaalin. waa tahay kaasina waxa uu ahaa Cabdi Ashkir oo loo yaqaan Cabdi Ilig oo ka mid ah ganacsatada deegaanka Tembisa wuxuuna iga waramayay walaaca ay ka qabaan bandowga buuxa ee lagu soo rogay dalkaasi. waa tahay dhanka kale madaxa sanduuqa lacagta adduunka ayaa sheegtay in fayraska corona uu dhulka la galay dhaqaalaha caalamka kaas oo la filayo inuu gaaro meel ka hooseysa halkii uu gaaray 2009 markaasoo adduunka ay ka jirtay xasarad dhaqaale. Kristalina Georgieva ayaa ka digtay in dalalka soo koraya ay saameynta ugu badan gaari doonto maadaama uu yaraaday maalgashiga lagu sameeyo islamarkaana uu hoos u dhacay qiimaha badeecooyinka. dalalka horumaray ayaa bilaabay inay kaabaan ganacsatadooda sida dalka Canada. haddaba warbixin ku aadan saameynta uu ganacsiyada Soomaalida Canada ku yeeshay cudurkan safmarka ah ayaa waxaa magaalada Edmonton ka soo diray wariye Duraan Xasan Yare. faafidda xanuunka corona ee dalka Canada ayaa saameyn ku yeelatay qaybaha kala duwan ee bulshada iyadoo dawladdu horay u amartay in la xiro goobaha shaqooyinka, waxbarashada iyo in la yareeyo isu socodka dadweynaha. Amarkan wuxuu saameyn ku yeeshay habsami u socodkii ganacsiga gobolka sida ay sheegtay Nimca Cabdi Xasan oo ka mid ah ganacsatada dukaanleyda ee ku nool magaalada Edmonton ee gobolka Alberta. Duraan wuxuu noo saameeyay si aad u weyn waana la socotaayo dadkii dawladda waxay ku amartay in iskuulaadkii la fasaxo sidoo kale shaqaalihii meelaha ka shaqaynaya waa la fasaxay dadkiina guryahay galeen. waxaan ku xirannahayna waa communitiga afrikaanka ah khaasatan Soomaalida iyo Itoobiyaanka aad iyo aad ayay noo saameysay maadaama uu annaga businesskanaga uusan ahayn cunno iyo qudaar iyo waxyaalahaas uu yahay alaabaha guryaha iyo waxyaalaha ay dadka xirxirtaan iyo wax la mid ah. sidaad ogsoon tahayba aniga waxaan ka mid ahay ganacsatada Alberta. dukaamadeyda qaar waa la xiray qaarna way furan yihiin
kuwa furanna waxba ma dhaamaan kuwa xiran waayo aad bay taraafigiisa u hooseeya keligeyna ma ahanee dhammaan communitiga soomaalida ama afrikaanka kaleeta oo dhan waa ila qabaan kolle intaan ogsoonahay saad ogsoon tahayba xanuunkan xanuun adduunkao dhan saameeyey waaye ganacsatada adduunkao dhan iyo dadka shaqaalaha iyo cid walba khaasatan communitiga annaga magaaladan degan ee soomaalida ah ee ganacsiga ku haysto aad buu u saameeyey maadaama dadkii ay fadhiyaan oo lagu amray inay guryaha galaan ciyaalkii la fasaxay shaqaalihii la fasaxay bal waxaad nooga warantaa ra-iisul wasaaraha dalka Canada wuxuu sheegay in uu lacag caymisa uu ku kabayo dadka ganacsiga leh ee qaybaha kala duwan ee bulshada sidee arintaas idin caawinaysa haddaad tihiin dadka ka ganacsada gobolka Alberta gaar ahaan Edmonton ra-iisul wasaaraha wuu ku mahadsan yahay lacagahaas uu ku dhawaaqay inuu ku kabayo small businessyada iyo dhammaan businesska wadanka laakiin hadda waxna soo gaaray ama aan hadda dhahayno waxaasaa laynka caawinayaa ma jirto awal dee noloshanada waxaan ku maareynaynay inaan annaga shaqaysano waana ku faraxsanna inaan maaragta annaga waxaan soo saaranay aan ku sarfayb galayno laakiin arrintaas hadda ra-iisul wasaaraha wuu sheegay waana la ansixiyey kolley waa arki doonaa wixii ka soo baxo wax linki ahoo haddadaana leeyahay directionkaas raaca oo halkaasaad wax ku leedihiin intaas eligible u tihiin weli maanan arag mar walba qofka wuxuu shaqaystay iyo wax la siiyey isku mid maahan uma malaynaya inay seem noqon karaan iyabooha hadda dowladda iyo annaga waxna aan helaynay laakiin sidaasay tahay in haddaan wax helno waa ku qanacsannahay wixii nala siiyo ma ahan ganacsiga oo keliya sidoo kale joojinta duulimaadyada dunida ayaa saamayn ku yeelatay dadkii ka shaqayn jiray jaridda tigidyada iyo xawaaladaha sida uu sheegay aadan axmed cabdi oo ka mid ah ganacsatada soomaalida sidoo kalena ah dadka jara tigidyada diyaaradaha waxaanu lahayn ganacsiyo hadday noqoto xawaalad hadday noqoto travel agency meelaha tigidyada dadka looga gooyo iyo hadday noqoto dukaamo iyo wax ganacsiga soomaalida xanuunkan waxyaabaha ugu badan oo dadku ku ifaktigeliyana waxaa ka mid a isku socodkii tigid baan annagu dadka u jari jirnay dadkii afrika aadayo iyo dadkii adduunka meel walba ay aadayaan diyaaradihii iyo maxaanku rahdaa dadkii bixi jiray muddo 2 bilooda wax tigida oo aan goynay ma jirto waxaa kaloo jirta dadkii xawaalada lacagta ka diri jiray oo imaan jiray marba haddii la xiray qof walba lagu amray inuu gurigiisa joogo maadaama dadka shaqooyinka laga fariisiyey waxay noqotay qof walba inuu gurigiisa joogo haddii qofkii shaqayn lahaa oo soo xamaali lahaa oo haddana imaan lahaa oo lacagtii diri lahaa oo dadka u diri lahaa ama wax gadan lahaana maba kuu soo gelay inkastoo saamayntan ay ka muuqato guud ahaan suuqyada waaweyn ee dalka Canada ayaa ra-iisul wasaare Justin Trudeau ku dhawaaqay lacag gaaraysa $82 bilyan taasoo uu sheegay in loogu talagalay dadka shaqooyinka laga fariisiyey kuwa xanuunka dartii loo karantiilay qoysaska iyo dadka ay soo wajahaan xaaladaha caafimaad degdega duraan xasan yare aad buu u mahadsan yahay warbixintii uu Edmonton ka soo diray ayaad dhageysanayseen markana wiil iyo gabar dhalinyaro ah oo ku nool magaalada Hargeysa ayaa hal abuur ay ka sameeyeen tacdiyada caruurta uu ka mid noqday suugaan loo xushay in lagaga qayb galo tartanka maalinta caalamiga ah ee suugaanta kaasi oo ay howshiisa gacanta ku hayso hay'adda UNICEF ee New York tartankan oo natiijadiisa la ogaan doono bilaha fooda inagu soo haya ayaa la sheegay in cidda ku guuleysata ay fursad u heli doonto inay la shaqayso hal abuurada caalamka ee magac weyn ku leh suugaanta haddaba wariye Cabdullaahi Jaamac oo Hargeysa jooga ayaa warbixintan ka diyaariyay toddobaadkan dunida waxaa laga xusayaa maalinta caalamiga ah ee suugaanta waxaa jirta in qabanqaabo meelo badan laga sameeyey oo wadamo dhowr oo Afrikaan ah ay ka qayb galayaan tartankaasi caalamiga ah ee suugaanta hay'adda UNICEF ee badbaadada caruurta ayaa waxa ay qabanqaabisay tartan suugaaneed dhalinyaro ka tirsan kuwa Soomaalida ah ay ka qayb galayaan oo markaasi dunida ay kala qayb galayaan maalintan caalamiga ah ee suugaanta dhalinyarada ka qayb galaysa tartanka suugaanta si dhexmartay UNICEF waxaa ka mid ah Asma Ali Maal gabadh gobolka Awdal ka soo jeeda jaamacadaha Hargeysa dhigata waana gabadh dhalinyaro ah Asma iyo waxay la jooga sarkaalka warbaahinta ugu qaabilsan UNICEF Jamaal Cabdi Sarmaan waxaan jecelahay bal inaan labadoodaba weydiiyo tartankan caalamiga ah iyo kaalinta ay ku leeyihiin dhalinyarada Soomaalida gaar ahaan kuwa halkan martida nogula ay ka mid tahay Asma iyo wixii ay kaga qayb galaysay bal marka ugu horeysa Asma ku soo dhaweeyo Asma tartankan maxaad kaga qayb galaysaa waxaan kaga qayb galayaa maanso aan ugu talagalay caruurta oo xaaladahooda gaarka ah ka waramaysa
dhibaatooyinka gaarka ah aqoon la-aanta waxyaalo noocaas iyo dhibaatooyinka ku haysta caruurta darbijiifka ah waxyaalo badan oo caynkaas taabanaysa mar dhow baan kugu soo noqonayaa baydad ka mid a maansadaada ayaadna maqashiin doontaa balse marka hore aan ku noqdo sarkaalka dhinaca warbaahinta u qaabilsan UNICEF Jamaal Cabdi Sarmaan waa maxay ujeedada laga leeyahay tartankan iyo dhalinyarada ka qayb galaysa aad idinku gacanta siinaysaan Cabdullaahi waa si fiican anaku waxaan abaabulnay dhalinyarada ku nool halkan Soomaaliland khaasatan waxaan soo xulnay laba dhalinyaro Asma iyo Maxamed waxay noo soo diyaariyeen suugaan ku saabsan tacdiyada caruurta ku dhaca mawduuca taas bay ahayd talabaadna waxaan ku beegnay sida tidii weegan oo waxa la xusay maalinta caalamiga ee suugaanta marka anaku UNICEF ahaan sida la socotid waxaan ka shaqeynaa xuquuqda caruurta waxa kale aan caawinaa hooyooyinka iyo dhalinyarada markaas muhiim bay ahayd dhalinyarada aan taageerno inay suugaan noo soo diyaariyaan waxaa loo gudbinayay xarunteena New York oo ka mid noqonaya dhowr suugaan oo wadan la soo xulay ay soo gudbiyeen oo tartan begelayaan marka kuwa ku guuleysta fursad waxay u helayaan inay dadka ku caanka suugaanta adduunka inay la shaqeeyaan ee wax la duubaan sida ku soo xulateen labada dhalinyarada marka waxaan noo soo xulay hay'adahan la shaqeyno oo Soomaaliland jooga gaar ahaan Hargeysa ujeedada waxaan saarnay dhalinyaro inay noo soo diyaariyaan because dhalinyarada kuma badna suugaanta laakiin waa la heli karaa marka nasiib wanaag waan helnay labadooda siday ku sheegtay Asmana waxay soo diyaarisay suugaan ku saabsan caruurta oo muhiima Asma ku soo noqdo adiga bal hadda gabaygii sidaa Jamaal sheegayo ka mid ah gabayada guuleystay ay direen ee tartanka geli doona ee mustaqbalka la eegi doono inuu soo baxo inaan soo bixin bal hadda wuxuu ku saabsanaa iyo baydadka ugu horeeya waxaad ka tiri gabaygaasi sidii aan hore kuugu sheegay baa wuxuu khuseeyaa caruurta manaha kii koobaadeen ka sameeya caruurta oo ilaa 2 ilaa 3 bay ahaayeen anigoo caynkaas oo kale aan caruurta ka sameeyay balse waxa ka mid ah baydadka maxaa ubax soo dhalaalay intuu dhashay soo barbaaray dharo ku qalalay dalkeena rajiyo noloshii dhex taalay barbaa darbiyada ku dheelan dileen dhaxantii qabowgu markuu dhimirkoodu leecay intay ka qanceen dhulkooda darooga barbaaba dhuuqa aqoonta lagu dhargaayay barkood jahliga dhantaalay ma helin dhigashada duruusta dhisiyo nolol bay rabaane caruurta haddaan la dhowrin waxaan dhur sugnaa ma yaalo codkaasina waxa uu dambeeyay warbixintii wariye Cabdullaahi Jaamac oo Hargeysa ka soo diray markana ciyaaraha khabiirada ciyaaraha Premier League EFL-ka iyo ururada kubadda cagta ayaa sheegay inay tahay in la qaado go'aan adag si loo kabo saameynta dhaqaale oo uu fayraska corona ku yeeshay tartanka horyaalka Ingiriiska dhammaan kulamada ayaa dib loogu dhigay ilaa ugu dambeyn 3 bisha Abriil waxaana kaliya dib loo bilaabi karaa markay xaaladuhu isbedelaan toddobaadka soo socda waxaa la qorsheeyay inay qabsoomaan kulamo si loo dejiyo qorshe la xiriira xaaladaha adag ee ku jiraan kooxaha kala duwan ciyaartooydooda shaqaalaha iyo taageerayaashoodaba inta ayaa dhageystayaal inooga dhan idaacadeennii